والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركبوه الرئيسة لما بدل وينها كسوة قيب قلي مضشن على مسارك أنكو على مسار إنه سلطان حسن عبد الله أحمد مره وحن سلامة يا لما بدل وينها كسوة قيب قلي وأيوه ريال مدح دغمتكم ولماودينكم من قلبوتك حزبية قرنك قريات قرنك مدحنا كليك سوى قيب قشي دلنيرada iyo haweenka sharafta leh ee madashan maanta quruxda badan leh soo agaasimay iyo dadweynaha reer Burco dhammaantoodba waxaan ugu salaamayaa iyo maamulka gobolka iyo degmadaba salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii aan intaas salaanta kaga tago madashan maanta aynu joognaa waa madal aad u qurux badan aad loo soo agaasimay Somaliland cid ka maqan ma jirto gobolladii madax dhaqameedkii way wada joogaan waxaan leenahay sharaftaasina waxa iska leh dadweynaha maanta soo abaabulay ee xafladda mudan ee sharafta leh soo abaabulay baa sharafteesa iska leh suldaan xasan oo maanta caleemasaarkiisa aynu joogno suldaanku sidii ay ragga horeba u sheegeen ma aha suldaan saaxadda ku cusub waa nin nala shaqayn jiray oo ka shaqayn jiray nabadgelyada oo ka shaqayn jiray horumarka oo ka shaqayn jiray samafalka Somaliland waxa kaliya u soo biiray maanta waxa weeyaan waa magaca suldaanku baa ku soo biiray xataa dadkii hore waxaa la odhan jiray koofiyadii buu qaaday maanta suldaan xasan marka hore waa koofiyadana uu gashadan jiray koofiyadana uu watay magacii baynu maanta aynu saarnay oo magacii baa u soo kordhay markaa cuqaashii beesha Sololmadow iyo dhammaan reer Sololmadow beesha oo dhan waxaan leenahay mar haddii aad soo xusheen suldaan xasan waad asiibteen waad soo xusheen nin ka bixi kara oo awooddeeda leh oo miisaankiisa leh ayaad noo keenteen haddaanu nahay dhaqankii Somaliland annaguna goobta aanu joogno baanu ku caleema saarnay idinla qaadanay idinku guwaabinaynaa anan maanta ugu hibeynaynaa inuu yahay suldaan Sololmadow oo aada soo xusheen waxaa dhacday beri dhaweyd muddo imika laga joogo ilaa sanad meelaha ayaa annaga iyo beesha Sololmadow beesha aanu ka soo jeedo iyo beesha Sololmadow baa waxa naga yar dhex dhacay arrin dil ah ayaa naga dhex dhacay dabadeed dee waxaan ciidan la soo xiriiraan kala waayo salaadiintii baan saa weega Burco Sololmadow waan ka waayay suldaan Sololmadow waan garan waayay waxaan la soo hadlay boqol gaacir oo halkan fadhiya boqol gaaciro war arrin baa iga soo galay Sololmadow hawl dilaana dhex martee dee suldaanna garan waayaan la soo xiriiray jiif caaqilkii buu ila soo hadashiyey jiif caaqilkaanu wada xidhiirnay dee maanta reerkii suldaan buu yeesho dee wixii dambena dhex maro suldaan xasan baan soo mari markaa caaqilkii ugu horreeyey halkan ka hadlayay wuxuu yidhi maantaanu dadkii la siman waxaan leeyahay Sololmadow maanta suldaade waa ilaahay mahadi nin kalena uu ka horreeyaa la yidhi markaa maanta astaan baad yeelateen oo salaadiintii weliba suldaan facfac weyn oo qurux iyo xulka waa lagu daraa marka waa la xulayo quruxda iyo dhararka iyo hubqaaskana waa lagu daraa waad keenteen adeela wasiir waxaan leeyahay oo aan maarta ugu ducaynayaa suldaan xasan waxaan leenahay suldaan soo dhawow waanu kugu soo dhaweynaynaa golaha salaadiinta ee Somaliland
adiga lagu tilmaami maayo salaadiintii hore sheegtay waxa keliyaan ku leenahay saaxaddii golaha salaadiinta ku soo dhawow wixii aan kula qaban karana diyaar baan kula nahay reerkaagiina waxaanu jecelahay inaad u talisid keliya waan kuu ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay xilkaa maanta reerkii uu kuu igmaday ee loo dhan yahay cuqaashiya jiif caqiladii oo dhan iyo reerkii oo dhan uu kuu dhiibay ilaahay ha kula garab galo annaguna waan kuugu ducaynaynaa oo waxaan leenahay ilaahay ha kula garab galo saddexdii laga dardaarayey madaxda dhaqankana halkana laga sheegay waan kaala dardaarmanaa waxa keliyaan kusoo darayaa suldaan xasan oo maanta haddii aad suldaan noqotay dadkoo dhan baad suldaan u tahay waxa kuu iman doona ka ugu xun baa ku iman uu ku caayi qandhuuf baa lagugu tufa waa inaad dulqaad yeelato dulqaad baad marka ugu horeysa reerka ku dhaqi karta ka xum iyo dee ka wanaagsan dhibba ma lehe dadka aad madaxda u noqonaysa ka ugu xun baa ugu daray ka ugu xun baad suldaan u tahay kaana waa inaad dulqaad u yeelataa waan hubaa inaad awoodeedii iyo aada leedahay waxba yaan hadalka sii badin reer burcana hadday berigeeda tahay iyo hadday galbeedkeyga tahayba mid baan kula dardaarmaya sidii hore loo sheegay dee waxaan yar fara badinay koofiyadii waan yar badinoo markaan xaggaa galbeedka joogo maalin walba telefishinka nin baa la caleemisaanaya dee waxaad yeeshaan bahashu iyaynay naga sii baxsanin bal iyadana soo koob oo sidii ninkii uu lahaa bal ninkaa ha lagu daayo sololmada wixii ka dambeeyana bal dee gaarihi oo iyanay naga ballaadhanin waxaan leenahay barigii waxaan leenahay bahashi way sii daayeen bal hala soo yarkaadiyo dee hal la xulo oo shuruudo aynuu samayno haddii aan leenahay kolley salaadiintu way ku tala jirtaayoo shirarmausode beri dhaweyd dhammaantiinba aad baan idiin salaamaya hadalku waan dheereeyey heella waa saaxiibka igama qabanaya aniga waxaad yeelaysiin waan ducaynaynaa suldaankana waan soo dhawaynaynaa waxaanu leenahay soo dhawow aada iyo aad baan ku soo dhawaynaynaa intaasaana kusoo gabagabayna waad mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu